عصاير هاي وادي كيما وادي كيما أنا هذا الخطوب الأبيض waxaan halkan dabal uga dirayaa madaxweynaha jamhuuriyadda la magacaaday Soomaaliland iyadoo maanta halkan aan uga dabaaldegayno wariyaha xidhan aan ugu mudaharaadayno sidaa daraadeed inkastoo wada ogsoontihiin in gobol walba looga mudaharaaday sidaa daraadeed anagoo halkan ka dhiibayna shucuurtayada iyo dareenkayaga halkan kaga hadlayna waxaanu si aad iyo aad u raali ah kaga hadlayna xadhigga wariye Mukhtaar taasoo dad badan iyo population badan ba ay ka naxeen xidhitaanka wariye Mukhtaar anagoo aad iyo aad uga xun maadaama haddii aan nahay reer Awdal waxaan imika halkan madaxweynaha dhammaan uga diraynaa inuu sida aliya sida ugu dhaqso badan uu arrinkaa u gali karo inuu u galo ugana hadli karo uu uga hadlo arrinkaa wariye Mukhtaar mudaharaadka intaa le waxaanu leenahay hala soo daayo wariye Mukhtaar أبغى مشاري وريا شوارع سكان عبيرة قلبي waxaan leenahay suxufi dalka u dhashay oo muwaadin ah in laga dhex qaato gobolka Gabiley maanta waa samad xumo ayaa leenahay madaxweynaha codsi balaaran oo dilaya iyo wasiirada iyo madaxweynaha cuqaasha inta waxaan dilaya codsi balaaran oo dilaya waxaan leeyahay suxufiinta u dhashay wadanka Soomaaliya in mar walba la madhameeystay wadamada Soomaaliya waa hawl adag baan leenahay ha loo jilbayo laabto hawsha gala madaxweyne codsi balaaran oo iska soo dhiibay gobolka Awdal haddaan nahay gobolka gobolka Awdal السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم مدحوينها جمهورية Soomaaliland waxaan dambaan u dirayaa wariba isaga haddii wariyaha Mukhtaar uu la soo dayay waliba waxa uu sii dirayaa waliba dhambaal duqeytida halkan ee odayaasha ayaan waliba dhambaal u sii dirayaa haddii ay si degdeg ah u hadli waayaan oo una dacwii waayaan inaanu tallaabo iyaga waliba ka qaadno haddaan nahay dhalinyarta gobolka Awdal sarti gobolka Awdal dadkan la qaabanaya godku lagu ridayo daanag ma fahmine yaa dhalinyar muwaadiniin aan nahay baa in madaxweynuhu si degdeg ah ariga uga hadla wariyaha wajaala laga qabtay ee godku lagu riday si degdeg ah waa in loo soo daayaa ورياها Soomaaliland oo dhashay waxaan madaxweynaha dhammaan uga diraynaa madaxweynaha uqaasha odayaasha magaalada Duqeytiga waxaan leenahay ninka walaalkay si degdeg ah dowladda iyo uqaasha si degdeg ah soo ayaan weydiisanaynaa dadka Soomaaliland meel kasta ay Soomaaliland hadday tahay uqaasha hadday Duqeytiga tahay hadday tahay wasiirada waxaan leenahay ninkaas degdeg ah arkiisa in jawaab degdeg ah helo ayaan u baahanahay hadaan nahay wixii magaalada haweenkii habeen tacaal sida degdeg ah kana loo jawaabaan u baahanahay salaam madaxweynaha shirafta waxaan ka codsanaynaa muwaadin u dhashay gobolka Gabiley weeyaan gobolka Awdal magaciisa anagoo ku hadlayna waxaan ka codsanaynaa madaxweynaha shirafta inuu noo soo daayo wariyahayaga sida ugu dhaqsiga badan وعكاب من أمور شيء نعمل بينا محمد محمود سيايو ومتقنا كاب عن التاسيل بطار من الحياة والله حيستمع حتى ربما حيستمع
بلو هذا بسم الله الرحمن الرحيم magacaygu waa Farxaan Cali waxaan maanta halkan isku yimid dadku ay u baxayaan guriyaha bilaadiga war waraysan waxaan u soo banaabaxay maanta oo shaqooyinkayga uga niminay guriyaha bilaadiga ee sida degdeg ah looga qaaday isagoo shaqadiisii gudanaya waxay leenahay anagu si degdeg ah loo soo daayo guriyaha sida shirqoolka loo qaaday ilaa imika Itoobiya iska haysto ee waxa loo haystaanay jirin Somaliland iyo waxay uga hadlayaan inay guriyaha ay Somaliland u shaqeynayeen si qaaday waliba qodobada yaan ilaahay garanaya ka jawaabaynayo sawaya مدحوينه أحمد محمود شيراي كان مختار نوح إبراهيم نو سو دايو مختار وان قرنا ما هن قبيله لكن dadkaaga hadaad ku qaban weydo madaxweyne aad cid ku danayn mayso waxa ka codsanayna sida ku dhaqso badan in Mukhtaar Nuux Ibraahim ugu soo dayso 10 habeen buu xidhay waxa kamaad qaban waxa uma qaban hadaad si degdeg u soo dan wada madaxweyne ka dhacdo waxaan ka codsanaynaa anoo shicibkaagii ku dooranay imikana ku dooran doona in loo soo daayo wariyo Mukhtaar Nuux Ibraahim oo ku xidhan dalkan Itoobiya taarka mudane madaxweyne maxaa ku aqoonsanaynaa hadaan dadkaaga iyo dadkiis aanad u qabanay wixii dhiga soo gaadhay